شعبي reer Somaliland walaalayaal waxa la isku hayo waxa ka weyn waxa la isku yahay nin walaalkii geed ugu jira geesi noqon waa inaad godob ka faantiyo kala daa gareexad tala xumo run weydaay rag sidaad u weyda waxaynu isku khilaafsanahay waxa ka badan waxaynu isla ogolnahay walaalayaal dagaalka barakaca iyo dhiigga sokeeye ku daadanaya magaalada Laascaanood ma aha wax la aqbali karo waana xaalad murugo tiiraanyo iyo urkutaalo leh oo ummadda reer Somaliland oo dhamme ka xun tahay ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa intii nagaga dhimatay colaadda Laascaanood ee weli sii socota intii dhaawacantayna ilaahay baan uga baryayaa una weydiinayaa caafimaad sariic ah inta maanta nool aynu u talinno dhan kasta kii naga dhintay waa kaa dhimay oo kugu dhimay waxaan u arkaa dagaal sokeeye oo aan ahayn laba dhinac oo mid la dhex dhigay ummad mid ah oo aan meelna kala tegayn Laascaanood waxay noola mid tahay Boorama Hargeysa Berbera Burco iyo Cerigabo xaaladda Laascaanood ku sugan tahay waa mid aan farxad gelinayn qof kasta oo inaga mid ah qof ahaan anigana si gaar ah ayay ii damqaysaa oo si dhab ah ayay ii taabanaysaa waayo dan kasta oo shakhsi ah waxa igala weyn danta caamka ah dadkayga oo midaysan nabad ah wada jira oo wax wada leh doonista kursiga waxaan ka leeyahay himilo ay ugu weyn tahay inaan hirgeliyo insha Allah Somaliland oo nabad ah walaala ah degan oo ka qurux badan tamaanta waxaan ka xumahay walaacna ka muujinaya dagaalka sokeeye ee sababay in qarankeenii ifayay ee aqoonsiga kaliya sugayay uu beesha caalamka ka siin karo faham aan u qalmin jamhuuriyadda iyo dawladnimada Somaliland ee aynu soo dhisaynay in ka badan 30 sano xisbiga wadani sumcad xumada jamhuuriyadda Somaliland ka soo gaadhay dagaalka Laascaanood ee maanta taala miiska qaramada midoobay uma arko arrin la iska daawan karo oo la dhayalsan karo tacabkii nabadda dimuqraadiyadda iyo deganaanshaha ee Somaliland caanka ku ahayd umay qalmayn in maanta lagaga doodo fagaarayaasha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo meelo ka shisheeya qaxa barakaca dhaawaca iyo dhimashada Laascaanood ka socota oo hore dadka reer Somaliland u soo mareen muusana goobjoog u ahaa inuu casharo iyo duruus ka baran waayo oo maanta waaya aragnimo ku baajin kari waayo dhibaatada taagani waxay muujinaysaa koritaan la'aan siyaasadeed iyo fashil xukuumadeed muuse waxaan leeyahay intii aad talada qaranka la amban karaysay waad la ambatay garashadaadii iyo xukunkaagii waxa uu dhalay xabad iyo xinjiro dhiig leh oo gudaheena ah su'aasha ku hortaal waxay tahay meeyii dalkii iyo dadkii midaysnaa ee lagu dhiibay muuse waxaan ugu baaqayaa inuu dhageysto talooyinka samaha sida maankiisana ku hayo su'aasha ah sidee ayay
u ekaan doontaa Somaliland aad ka tegaysaa maxaad raad taariikh ah iyo legacy kaga tegaysaa oo lagu xasuusan doonaa dhanka kale xisbiga wadani waxa uu si adag u cambaaraynayaa duulaanka faragelinta ah ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ku soo qaaday gudaha Somaliland xisbiga wadani waxa uu bogaadinayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland inay iska difaaceen duulaankaas gardarrada ah cid kasta oo dibadda kaga soo duusha nabadgelyada iyo ammaanka Jamhuuriyadda Somaliland xisbiga wadani waxa uu garab taagan yahay ciidamada qaran wuxuu ku garab taagan yahay ciidamada qaranka difaaca qaranka dadyowga meelaha ka baxsan Jamhuuriyadda Somaliland ka soo gurumanaya ee qoriga dhiigga leh colaadda laascaanood kaga qayb qaadanaya waxaan leenahay balaayo la isu habar wacdaa waxay keentaa colaad hurta iyo hurgumo raagta waxgaradka odayaasha iyo garaadada laascaanood waxaan u soo jeedinayaa nabad iyo xabad joojin degdeg ah intaynu ciidan iyo qori isku miciinsanayno caqliga iyo garaadka aynu magansanno dhiigga farsamo xumada tala xumada iyo xilkasnimo darrada ku daadanaya waa dhibaato dadsamee ah waanay dhibaysaa guud ahaan qulubta shacbiga reer Somaliland ee jecel nabadda isku dhaca colaadda iyo dagaallo naxli dhexdeena ahi ka dhashaan oo shacabka reer Somaliland kala gala waa maradaadu ha kugu gubato xisbiga wadani waxa uu cadaynayaa in bulshada reer laascaanood ay waxgaradkoodu xaq u leeyihiin tabashadooda dood kasta oo ay qabaan waxaanse ugu baaqaynaa inay wada hadal nabadeed loo maro annaga oo soo jeedinayna labada dhinacba inaanay xalka ku koobin qori caaradii marka siyaasadda laga tago dadkeennu way wada noolaayeen boqolaal sannadood ilaa iyo inta suurta la afuufayana way wada noolaanayaan sidaa darteed aan dhaayaheenna aragti fog ku eegno walaalayaal reer Somalilandow ma nihin dad isqaban kari waaya dhaqanna inoomay ahayn ma nihin dad wax kala qaadan kari waaya ma nihin dad dhexdooda dhibta timaada dhammayn kari waaya ma nihin dad miis wada fadhiisan kari waaya oo wada hadal ku baajin kari waaya dhiigga dadkeenna iyo ciidankeenna ka daadanaya balse waxaa dhacaya iskama dhacayaan waxay u dhacayaan siyaasad xumo xukuumadeed oo maanta haysata reer Somaliland waxay nagu waajiba culimo iyo ciroole iyo waxgaradba inaynu u guntanno sidii aynu u dhaylahayn dhaawacyada muuqda iyo kuwa qarsoon ee qulubteena gaadhay waxay dhegaheennu maqlayaan waa dhiilo waxay dhaayaheennu arkayaan waa dhibaato xisbiga wadani xalka maanta taagan xabad uma arko waxaan bulshada reer Somaliland iyo beesha caalamka u cadaynaynaa mowqifka xisbiga wadani ee dagaalka laascaanood inuu yahay nabad iyo wada hadal waa intii aan ku bilownay subaxii dagaalku qarxay waa intii aan ku talinay iyadoon dhibkani halkaas gaadhin waa midaanu ka shaqaynayno siina wadi doono inaanu ka shaqayno waa waajib in la kala saaro qaranka iyo qofka danta qaranku kuma sidkana qof gaar ah
ama koox gaara nabadda midnimada wadajirka amniga xasiloonida iyo horumarka dalkeenna iyo dadkeenna ayaa ka mudan in qof lala miisaamo ama lagu dhereriyo walaalayaal anigu isdhuldhig la'aanta garowshiya la'aanta ballanka baxa iyo tanaasul la'aanta uma aqaan dhaqan wanaagsan oo hoggaamiye ku sifoobo isu bahalagelinta dadkaygana badbaado uma arko walaalayaal go'aanada qaldan ee hoggaamiye qaato ayaa laga dhaxlaa burbur ummadeed sida taariikhda lagu hayana dawlado badan oo qaaradda Afrika iyo adduunka ah ayaa ku dumay kuna lumay tala xumo sababtay in dadkoodu ku baaba'aan oo ay ku barakaceen isla markaana ay noqdeen qaxooti duruufo adag iyo dayac baahiyeed haleesho si dhibtaas oo kale Somaliland uga baaqsato maanta waa maalintii loo baahnaa in caqligu shaqeeyo ma aha maalintii aynu cudud isku muquunin lahayn walaalayaal waxaan caddaynayaa in xisbiga waddani uu si buuxda u taageersan yahay erge kasta oo nabadeed oo isu xilqaanta deminta colaadda laascaanood maanta dalkeennii Somaliland waxa uu marayaa laascaanood oo dhiig ka daadanayo iyo intii kale oo khilaaf baahsan ragaadiyey waxaan u taagnahay xal kasta oo nabadeed inaan ka qayb galo oo hormuud ka noqdo waxaan mar labaad u taagnahay anigu rajo kasta oo lagu abuurayo dib u noolaynta midnimadii wadajirkii himiladii shacabka jamhuuriyadda Somaliland waxaan bogaadinayaa oo niyad samaanta odayaasha dhaqanka iyo haldoorka bulshadeenna oo muujiyey rabitaan nabadeed waxaan ugu baaqayaa guud ahaan madax dhaqameedka iyo isimada Somaliland deegaan kasta ha ka soo jeedaane inay u midoobaan sidii nabad iyo wada hadal loo heli lahaa waxaan labada dhinac ugu baaqayaa xabad joojin hirgasha ciidamada oo la kala durkiyo iyo wada hadallada nabadeed oo bilaabma waxaan ugu baaqayaa xukuumadda hay'adaha caalamiga ah iyo shacbi weynaha reer Somaliland in gurmad degdeg ah iyo taakulaba lala gaadho dadka ka barakacay magaalada laascaanood insha allahu marka dambena dejintooda iyo dib u dhiska magaalada gacan weyn laga geysto walaalayaal waxaan kaga baxayaa murti suugaaneed abawaan xildhibaan xasan saleebaan dhuxul dhiga oo tumaatida ka hadha godobta dhiigeeda ku dhadhaba wanaag oo isfara wada dhisnaantiinna dhagxumo iyo faq hoosiyo ka kora talo dhacnaanteeda lugtu jeeni dhaaftee adeer dhowra magaceenna allaan idinku dhaarshee dabkiyo dhiga hubka aawan allaan idinku dhaarshee dabkiyo dhiga hubka aawan wasalaamu calaykum waraxmatullahi